geedka nabadda ee degmada Garada kaasoo taariikhuna ku leh eeyga Somaliland iyo guud ahaanba wadanada Soomaalida isla markaana lagu qabtay shirar badan oo kala dambeeyay kuwaasoo faa'iido iyo midho u yeeshay raadna ku reebay nabadda dalka isla markaana dadweynaha reer Gardag ay ku soo dhaweeyeen madaxda iyo hadba cidii ay maamuus iyo qadarin u hayaan ayaa waxa burbur iyo dhaawacyo u geystay geedkii ku wareegsanaa roobabkii maalmihii tagay kuwaasoo dumiyay qaybta VIP-da ee lagu soo dhaweeyo mas'uuliyiinta waxaana ka warbixiyay oo sheegay inay dayactir iyo dib u habeyn ku sameynayaan maamulka dawladda hoose ee degmada Garadag sida maayirka degmada Garadag Mudane Faarax Aadan iyo xoghayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale waxaana hadaladoodii kamid ahaa degmada Garadag sadartan waxa soo gaaray daawac ka soo gaaray ayaan naxariis ilaahay daasay qayb kamid ah oo balli ka dambeeya ayaa ilaahay duntiyo dhaawacay ma sha Allah taala inta wax doonaan sidii oo shaada loo gudo jiraa oo la kasaanay meelihii makaraysa weliba isku yimid aan dibu ay isku sameeyay aan arrin markaa wixii sida ugu habboon tahay in loo dhisi karo shaqadan iyada insha Allah toddoba casho gudaheed ayaan insha Allah soo ayaan ku dhameyn doonaa toddoba casho kadib insha Allah taala بديت مع دوا وأنا ما في دون توا فرسان دون توا اللي بختارين دونا أما شيء جوسي قريب كايا قدور حصل حانا ونور قبل يوم دومية دكتور وارد تمام ودي كتير كذا عطوني وارد تمام بس وأنا قعدت كلنا سيدي أيود ند يسيك السوق بدل ما نقول لنا ونقول سنين جنرال ما نقول لنا فلان دي مان هو بدلنا دي ودنا ما نقول زياد وأنا عرفت إني قرب كيشي لو تيجي هذا السنة أدي أدم جينا علينا إلى نوصل كل كشيء بس لا شغل يوصل أدي أدم جينا علينا والسلام عليكم فرح بربورتي هون كيبل تي في كرادك.